habaarkeedu uu dhaca marka hooyooyinkana iyo aabayaashana waxaan kula dardaarmaynaa dhalinyaradana waxaan leeyahay albaabadii jannada kamida weeyaan waalidkaagu iyo inuu ka xidhin albaabkaas carabta ayaa naga fiican xagga curfigaas carabta dhaqan waxay leeyihiin islaanta yar qaylo badana haddaad hooyada ku tiraahdo islaanta yar qaylo badana kaad adigu aad dashaa ku oran doono waraabaha qaylo badana iba sakhraan buu ahaabale sakhraan habeen walba aabihii buu garaaci jiru dili jiray marka waalidkana dawaad arkaysaa qisadaas hooyada habaarkeedu uu dhaca marka hooyooyinkana iyo aabayaashana waxaan kula dardaarmaynaa war ubadkiinu hadday inaga cadhaysiiyaan hadal xun ka ilaali afkaaga soomaalidu moogtahay afkeennu iska balaaya ku qaada baad odhan way qaadi balaayadii dhibta ayay kugu soo noqon dhibta ayay ku soo noqon dhibta adigoo kugu soo noqon baaburku la qallibay buu yidhi wuu la qalliba baaburkii afarta adin buu ka jabay isagii baa la dulkanoo haya carabta ayaa naga fiican xagga curfigaas carabta dhaqan waxay leeyihiin ilmaha yar hadduu waalidkiisa uu ka yar cadhaysiiyo ma habaartamaan hadal xun kuma hadlaan waxay idhahdaan allah yahdiik allaha ku soo hadeeyo hooyo allaha kuu naxariisto hooyo dembigaaga allaha dhaaf hooyo waalidkaaga allaha janneeyo wuu cadhoonayaa waalidkii laakiin hadalka ka soo baxaya u fiirso innakana waraaba ku qaaday daad kula teg kan mid baa tidhi alla kan uu dhibee magafo allaha gacanta u geliye bay tidhi magafo gacanta u galay aqalkay ku jirtay bay iibisay yaa ishabaaray markaa adigoo baa ishabaaray marka waalidadana waxaan leenahay hadday ubadku nagu yar qaldamaan ha habaarina hadal fiican ku hadla dhalinyaradana waxaan leeyahay albaabadii jannada kamida weeyaan waalidkaagu iyo inuu kaa xidhin albaabkaas albaabada jannada kamida looga galo weeyaan waalidku intuuna kaa xidhmin waalidkaaga ur noqo baari sidaad aakhiro aad u mutaysataa albaabka inaad ka gashaa jannada zubayr curwata binu zubayr buu ahaa taabicigii caalimka ahaa iyo jaliilka ahaa ay dhashay asmaa binta abi bakar waxaa la yidhi hooyadii baari buu u ahaa hal maalin baa lagu yidhi curwow adoo hooyadaa cunto la cunaya laguma arkine haddana saad hooyadaa baariga ugu tahay waan la yaabanahay maalin keliya cunto lama cunine maxay ku dhacday baa lagu yidhi waxaanula cuni waayey baa jirta buu yidhi waxaan ka baqay buu yidhi luqmadda ay isha ku qabato inaan ka hor qaato oo aan cunoon caaqul waalidiin ku noqdaan ka baqay buu yidhi dalku ka fikiraya innakana hee islaanta yar qaylo badana haddaad hooyadaa ku tiraahda islaanta yar qaylo badana kaad adigu aad dashaa ku oran doono waraabaha qaylo badana way dhacdana taasi maanta inba sakhraan buu ahaabale sakhraan habeen walba aabihii buu garaaci jiru dili jiray markaa jaarka u soo baxoo ka celiya warduqa iska daa habeenada kamida kolkuu khamrigii ka soo dhargay ayuu intuu yimid scotch alkool buu afka kaga dhajiyey degtuu ku qaatay magaaladii buu kala baxay bannaanka markuu la baxay buu ka furay baa la yidhi afkii kolkuu odayga dhimo gaadhay wuxuu yidhi aabba naqaskaad igu dhajisay waa adiga maanta magaaladii igala soo baxay halkeed igu wadaa wuxuu yidhi qudha kaaga jarayaa buu yidhi maanta waa sakhraan markaasuu yidhi ma inaad dishaad ii soo saaratay haa geedka haydhaafina igu hoos dil buu ku yidhi geedkaas sakhraankii baa ku yidhi geedkan maxaad u dooratay ii sheeg wuxuu yidhi waa kii aniguna aabbahay aan hoostiisa ku dilay buu yidhi waa waxaan geystay sidaad waalidkaaga maanta aad u qabato ayaa adigana ilmahaagu ku qaban ogow curwata binu zubayr waxaan hooyaday cuntada ula cuni waayey luqmadda ay tamacday isha ku qabato inaan ka hor cuno oon caaqul waalidayn ku noqdaan ka baqay buu yidhi maalintay dhimatana sida ilmaha yar buu u ooyey markaa baa lagu yidhi yaa curwa asxaabu rasuulillaahi raggii waaweynaa baan weynuu naga dhintay umaan ooyine waa sabirnee maxaad hooyadaa aad ugu ooyeysaa baa lagu yidhi sidan wuxuu yidhi hooyo dhimashadeedu waa xaq lama ooyaya buu yidhi arrinkaas waxaan la ooyaan nin sheegi buu yidhi hee albaabadii jannada ka mida looga gelaayey ayaa iga xidhmay buu yidhi maanta oo iga xidhmoon la ooyayaa buu ka yidhi
samafalka hooyaday aan u samafalayo baarinimada hooyaday aan u noqonayo baari waxa weeyaan buu yidhi maaragtaanay waxa weeyaan albaabadii jannada ka mida looga gelayo weeyaan lidaalika walaalayaal aadaabta islaamka hambarano waalidadeenna dhaqanka islaamkaan kula dhaqanno abaa hurayra radia allaahu canhu ayaa arkay inan yar oo oday ka da'weyn hor socda markaa buu abaa hurayra uu joojiyey joogso waryaan odaygan muxuu ku yahay buuhi markaasir waa aabbahay waa aabbahaba haa odaygii buu ku yidhi yarkeer maxaad u tahay adiguna waa inankaygii buuhi kii ugu yara carruurtayda markaa buu yidhi dhegayso yaroo dhegayso buu ka yidhi aabbaha markaad la socoto ha hormarin hortii ha socon hortay ha fadhiisan hortii ha hadlin aabbaha markaad la socoto ama qofkaa weyn aad la socoto ama waa laga dambeeyaa ama waa la hareer socdaa hadduu waalidkaagu meel uu damco inuu fadhiistana lama hor fadhiisto dad hadduu la hadlaayana hortii lama hadlo hadduu waalidkaagu kula hadlaayana lama eego wejigiisa dhulka la eegaa buuhi dhulka aadaabtaasi dhaqanka islaamkaana baray buudhiye adiguna baro oo ilmahaagana u sheeg dadka kaleed aragtana u sii sheega buu ka yidhi akhlaaqda islaamku waa taas mar keliya unbaa qofka da'da weyne waalidkaaga la hormari karaa hal mar keliya unbaa waalidka laga horrayn karaa bay culimmadu leeyihin waa markee waa marka waalidkaaga aad uga baqdo xagga hore cadow inuu kaga yimaado unbaa la hormari karaa bas abubakr sidiiq radia allaahu canhu isagiiyo nebigu sal alla alay slam markay hijroonayeen dariiqa alhijri ay socdeen abubakar marna nebiga xagga horuu ka maraa marna xagga dambuu ka socdaa markaa buu nebigu ku yidhi yaa abaabakar marna xagga horead iga martaa marna gadaal baad iga martaa ay sidee waxu jiraan xagga hore markaan kaaga baqana ee shikiyo een isiraahdo xagga hore bilow cadow kaga imayna waa ku hormaraa xagga dambe markaan kaaga baqana waa ku daba maraa buuhi xagga dambe baan kaa maraa qofka karaamada leh ee kaa da'da weyn leh hadduu caalim yahay hadduu waalidkaa yahay hadduu adeerkaa yahay hadduu qof kaa da'weyn yahayba aadaabta islaamku ayuu leeyahay kula dhaqma cali ibnu abi aalib buu inuu yimiddo wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin saaxib alciyaal baan ahay saaxib alciyaal reero badanna waan leeyahay maciishadiin way igu adkaatee sideen yeelaa buu ka yidhi wuxuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi markaasuu yidhi laa malaha salaada fajar marka laga baxo ayaad hurdada ku noqotaa markaasuu yidhi may lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinan buu ka yidhi qof haddana kaa da'weyn markaad la socoto malaha waad hormartaa buu ka yidhi markaasuu yidhi may taana ma sameeyo buu yidhi haddana markaad ducaysanaysid labadaada waalid ilaahay dembidhaaf ma u weydiisaa markaasuu yidhi may taa ma sameeyo buu yidhi ta maciishada cidhiidhiga kaa gelisa waa taasa labadaada waalid mar kastoo ducaysanayso ugu ducee rabbana kfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab